بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا وناكسن داوديال مeel ba joogtaan si walba noo daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadkii tagay ee Soomaaliya oo xilligan oo kala ka daawataan telefishinka qaranka Soomaaliyeed xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho qodobada ugu waaweyn aad ku daawan doontaan barnaamijka waxaa ka mid ah tartanka ciyaaraha degmooyinka gobolka Banaadir oo toddobaadkii tagay si rasmi ah ugu furmay garoonka kubadda cagta Konis ee magaalada Muqdisho waxaa si rasmi ah u furay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo darajada sare ee guuto oo xiray gabadhii ugu horeysay ee ciidanka qalabka sida gaartay darajada jarnaal ahna taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kormeeray garoonka kubadda cagta Stadium Muqdisho halkaas oo ay ka baxeen ciidanka AMISOM Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa shir gudoomiyay shir looga hadlayay soo saarista lacag shilin Soomaali cusub iyo dhaqaalaha guud ahaan ee dalka qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan daawadayaal barnaamijka toddobaadkii tagay ee Soomaaliya isku soo noqod wanaagsan mar kale daawadayaal tartanka ciyaaraha degmooyinka gobolka Banaadir ayaa toddobaadkii tagay si rasmi ah ugu furmay garoonka Konis ee degmada Cabdiasiis ee gobolka Banaadir waxaa si rasmi ah u furay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha dowladda federaalka Soomaaliya goobta munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Tuulux waxa uu sheegay inay sii wadayaan barnaamijyada isdhexgalka bulshada waxaan galabta halkan ka furnay garoonka Konis tartankii kubadda cagta ee degmooyinka gobolka Banaadir oo runtii sanadkiiba mar la qabto waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa gudoomiyaha isboortiga iyo guud ahaan maamulka degmooyinka gobolka Banaadir sida wanaagsan oo ay uga soo qayb qaateen tartankan oo socon doona muddo hal bil ku dhow waxaan rajaynayaa dadka ama dhalinyarada gobolka Banaadir degan inay fursad u tahay oo isku dhex galaan oo ay uga faa'iideystaan amniga iyo maaragtay isdhexgalka runtii waxaan si kala rabaa inaan u hambaliyeeyo degmada Waaberi oo galabta ku guuleysatay tartankii halkan ka dhacay waana rajaynayaa degmooyinka kalena inay guulo ka keeni doonaan hadduu alla idmo shacabka reer Waaberi oo ayagu markii horeba tartankii hore ku guuleystay inay maanta bilowgii ugu horreeyay ku guuleystaan ayagana fursad u tahay waana u hambaliyeeyaa waana rajaynayaa degmooyinka kalena inay ku daydaan annaga maamulka gobolka Banaadir waxaa naga go'an annagoo fulinayna talooyinka iyo qorshaha siyaasadeed ee madaxweynaha iyo prime ministerka inaan ka shaqeyno sidii shacabka magaaladan degan ay isdhexgal u sameyn lahaayeen amnigana ay qayb uga qaadan lahaayeen si dhalinyaradan hadda arkaysaan ee 10 kun ku dhow maanta halkan joogay aan uga faa'iideysano fursadaha iyo awoodaha ku jira oo aysan cadowga uga faa'iideysan marka annaga fursad gaar ah noo tahay maamulka gobolka Banaadir waana rajaynayaa inaan sii wadno tartankan wuxuu ka soo bilaabmay degmooyinka oo waxaa jiray tartanno kale oo degmooyinka lagu qabanayo sida kubadda kolayga ay ka mid ahayd gudoomiyaha isboortigana waa ku ammaanaynaa shaqada wanaagsan oo uu ka qabtay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa darajada sare ee guuto u xiray gabadhii ugu horeysay ee ciidanka qalabka sida ka gaartay heer jarnaal ahna taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed xasan cali kheyre ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in dumarka Soomaaliyeed ay kaalin wanaagsan ku leeyihiin ciidanka laga soo bilaabo maalintii dalkeena xorriyadda qaatay iyo intii ka horeysaba waxaa jihaad ugu jiray dalkan inay dhisaan gabdho Soomaaliyeed laga soo bilaabo xawataako ilaa Zaki oo aan caawa halkan u joogno
waxaa jirta laba taariikha tii horeysay oo ahayd raggi diidanaa in gabdhaha xuquuqdooda la siiyo inay qayb ka noqdaan madaxnimada qaranka inay noqdaan hogaamiyaasha kana noqdaan qolooyinkii dalkan ku lahaa xaqa ay ku lahaayeen iyo kuwa cusub oo aan anigu koow ka ahay oo ah in dumarka Soomaaliyeed xuquuqdooda loo dhammaystiro lana siiyo wax walba ay xaq u leeyihiin si bulshadana ay u noqoto bulsho caafimaad qabta qaran guuleysanayo ma jiro haddii aan la siin qayb walba oo bulshada ka mid ah xuquuqdeeda haddii gabdhaha Soomaaliyeed ay shacabka Soomaaliyeed ka yihiin 50% indhaha aan iska xirno duudsanno xuquuqdooda ma dhisayno Soomaaliya la tartami karta wadamada dariska haddii aan zaki xuquuqdeeda u diidi lahayn looma xireen garaadahaas caawa haddii aanay soo dadaali lahayn iyaduna ma aanay timaadeen meesha ay taagan tahay gabar walba oo Soomaaliyeed waxaan leeyahay ha ku fahminina kaliya inaad noqotaan gabdho garaado qaata noqda madaxweynayaasha iyo ra'iisul wasaarayaasha soo socda haddii la yiraahdo gabdhaha kale oo Soomaaliyeed oo ku jira baarlamaanka oo halkan fadhiya iyo kuwa dhageysanaya oo u soo dadaalay xuquuqda dumarka Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay idinkana guushiina way muuqataa ee isdhiibinina wiilasha dhalinta yar oo halkan jooga oo u labisan iyaguna inay ka soo baxaan tababar waxaan idin leeyahay waxaad ku soo aadeen waqti wanaagsan waqti ummadda Soomaaliyeed ay soo jeesatay ay kala garatay saxda iyo khaladka la bilaabay in la ilaaliyo xoolaha ummadda Soomaaliyeed la bilaabay in la dagaalamo musuqmaasuqa la gartay dawladnimada Soomaaliyeed inay ku taagan tahay dariiqa saxda ah idinkana la idin soo xulay inaad noqotiin ilaaliyaasha dawladnimada ummadda Soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kormeeray garoonka kubadda cagta Stadium Muqdisho kadib markii ay halkaas ka baxeen ciidamada nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya AMISOM wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda federaalka Soomaaliya xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye ayaa sharaxday muhiimadda garoonka kubadda cagta ee Stadium Muqdisho iyo socdaalkii madaxweynaha ee uu ku tagay garoonka maanta oo bisha ay tahay 27 waxa dhex tagay madaxweynaha jamhuuriyadda berri haddii ilaahay yiraana waa dhammaystirmi doonaan waxaa ka qalab aruursaday Stadium Muqdisho oo ciidamada dawladda ku soo wareejiyay gaar ahaan ciidanka booliska Soomaaliyeed ciidamadii midowga Afrika ee deganaa muddada dheer ee ilaa iyo 8 sano oo ay dalkan joogeen alxamdulillah waa wax ilaahay loogu mahadiyo waa waxaan isugu bishaareynayno taariikh fog ayuu leeyahay garoonka Stadium Muqdisho waa wada ognahay 78 ayaa dhismihiisii la dhammaystiray 80-maadiyadii garoonkani wuxuu ahaa kan qaaradda Afrika ugu sareeya waxaa lagu ciyaaraa ciyaaraha Soomaaliya sportiga Soomaaliyeed noocyadiisa kala duwan waxaa la dhahaa tuulada ciyaaraha Soomaaliya loogu magac darayay runtii maanta horumarka sportiga aan ka sameynay haddaan nahay dowladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo haddaan nahay xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa la wada ogyahay rajada sportiga Soomaaliya inay soo noqotay guulo Soomaaliya ay ilaa iyo barisamaadkii ay gaari jirin ayaan gaarnay taasna waxaa keen moralka iyo niyadda madaxda qaranka ay ku hogaaminayaan sidii loo horumarin lahaa sportiga iyo dhalinyarada taasaa keentay in rajadii soo noqoto taasaa keentay in garoomada kale ee magaalada Muqdisho iyo kuwa dowlad goboleedyada ku yaalana ay dowladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay diyaar u tahay ballanqaadyadeedii inay ka dhabayso haddii allaha awoodda leh ogolaado socdaalkii ugu dambeeyay hadda ra'iisul wasaaraha golihiisa wasiirada ay ku shireen Puntland uu soo maray garoomadaas ayaa ka mid ah iyo dowlad goboleedyada kale in laga dhabeeyo sidii loo soo ballan qaaday dadka Soomaaliyeedna loogu jeehin lahaa horumarka sportiga taageerayaasha sportiga Soomaaliyeedna
dhiiri gelinaysa laftirkooda farax gelinaysa su-aalahaas waxaan u malaynayaa inay maanta soo gabagaboobeen maadaama amisom ka qalab aruursatay garoonkii stadium muqdisho 27 bishan agost sanadkan 2018 alxamdulilah waxaan leeyahay inuu soo noqdo kubadda cagta iyo cayaarihii kale lagu cayaarayay qaaradda Afrika maanta waxaa madax ka ah dad ayagoo cayaartooy ah imaan jiray halkan oo ku cayaari jiray haddaan tusaale usoo qaato gudoomiyaha kubadda kolayga qaaradda Afrika 81gii isagoo ciyaartooy garoonkan ku cayaaray welina had madaxda waxay diyaar u yihiin inay yimaadaan ay arkaan Soomaaliya waxay noqotay wadanka aan lahayn cayaaraha fudud orodada garoonka budget iyo dhaqaalihii loo hayay waa la diiday in lagu sameeyo garoonkan hadda stadium banaadir oo kale waayo 6 riigo waaye qarashkana waxay ku bixinayaan Olympic Solidarity ballan qaaday inay bixiso waxay ku bixinayaan standard heer caalami ah international standard waayo 8 riigal rabaa stadium muqdisho kala leh waxa soo dhan noo soo wada noqonayo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shir gudoomiyay shir looga hadlayay soo saarista lacag cusub iyo dhaqaalaha guud ahaan dalka wasiirka wasaaradda maaliyadda Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beele oo ka qayb galay shirka ayaa sharaxay ahmiyadda uu leeyahay shirkan Soomaaliya sida dadka Soomaaliyeed ay ka warqabaan shuruudo fara badan baa la nagu xidhay si lacagta loo soo daayo si lacagta loo keeno oo loo soo daabaco waxaa loo baahnaa shuruudo fara badan shuruudahaas oo 12 bilood ina dhaafay 18 bilood ina dhaafay laga soo shaqeynayay waxaa la isla gaaray in shuruudihii la soo wada bujiyay mar haddii la soo bujiyay marka maanta waxaan u taaganahay waxa weeye in dalkeena lacagtiisii soo noqoto shilinkii Soomaalidu soo noqdo taasina waxay u baahatay lacag way u baahatay lacagtaas oo laba qaybooda qaybi waxa weeye lacagta la soo daabacayo daabaca lafteeda ayaa lacaga oo loo baahan yahay lacagta la helo maamulkeedii iyo hadday ama kor ku cadaamo hoos ku cadaamo wixii lagu maamuli lahaa iyo meelgeynteedii iyo muxuu ahaayeen amnigeedii wixii lagu maamulay kharash buu baahday kharashka u baahday la isku soo geeyo 40 milyan ayaa la doonayay inay meel ka yimaadaan si aad ogtihiin meeshaasi ma noqonayso meel inagu aan keeni karo dakhligeennuna ma gaari karo nasiib wanaag dawladda fara badan iyo agencies fara badan ayaa ku ballan qaaday oo noo sheegay hore noogu sheegay in arrintaasi tahay arrin lagama maarmaan dalkan u tahay maadaama shuruudihii la soo bujiyeen ay diyaar u yihiin inay lacagaha isku dayaan inay noogu deeqaan marka shirkani waxa weeye oo ra'iisul wasaaruhu jeergelin gudoominayay isaguna isugu yeedhay wuxuu shirkii ugu horeeyay ee laga wada hadlo arrintaas waxaan filaynaa shir kale oo ka weyn inuu kan ku xigi doono oo dabeetana lacagaha aan soo heli doono ay ku xigi doonto marka inaan company weyn helo oo lacagta inoo soo daabacayn heli doono dowladda Soomaaliya ayaa ka shaqeynayso dib u dayactir lagu sameeyo garoonka kubadda cagta stadium Muqdisho kadib markii halkaas ay ka bixeen ciidamada nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya AMISOM waxaana ammaanka halkaas lagu wareejiyay ciidanka booliska Soomaaliyeed haddaba maxay ugu dhigan tahay bahda sportiga iyo dhalinyarada inay gacantooda ku soo laabato garoonka kubadda cagta stadium Muqdisho wallahi farxad aad iyo aad aan soo koobi karin waa Muqdisho maanta oo ka arkay sidoo kale aan la kulmay madaxda qaarkood ciidamada qaarkood si fiican isku ciidnay awal waxa jirta cabsi badan oo laga qabo in meelaha la yimaado laakiin maanta aad aan u faraxsanahay xaafadeena ka mid noqotay xaafadaha ay dhashay maxaa ku tilmaamay meel ay ku yaalaan garoomada waaweyn sidoo kale garoonkan waxa wax u maleynaa inuu yahay garoonka labaad ama garoonka saddexaad Afrika ugu weyn garoonkan wuxuu taariikh u leeyahay annaga hadda ciyaaraha kubadda cagta ama handballka ama basketballka waqtimadii garoonkan furna jiray ciyaaraha Afrika iyo Carabta wax weyn ka jirnay laakiin garoonkan waxa ciyaartooyda hoos u dhacay dib u dhac ciyaartooyda waxaana keenay garoon laanta keenayso garoonkan standard way hadda ciyaaraha fudud oo kale garoonka stadium kooni standard maahan kana international ah garoonkan standard kana fiican stadium kooni waa 9 way kan laaga 110 standard way marka waxaan isla karaa hadii garoomadan la helo waxa la helaa ciyaartooy quality leh hadda dhibkana haysto waxa way handballki basketballki volleyballki hal garoon way laakiin inta xiriir kasta wuxuu leeyahay garoon khaas ah
basketball garoon uu leeyahay, handball garoon uu leeyahay, volleyball sidoo kale, kubadda cagta sidoo kale. Athletic garoonkan garoon caalami ah marka. Waxaan dhihi karaa furitaanka wuxuu faa'iido inaan gaarno ujeedkeena weyn. maanta wallahi farxad aad iyo aad u weyn baa dareemayaa maadaama aan garoonka aan ku haamin jiray aan taaganahay oo waxa ah garoonkii oo ciyaartooyda ciyaaraha fudud oo hadda Muqdisho stadium anigoo weligii aan imaanin dhigtale aan ka maqli jiray oo aan maanta aan taaganahay farxad weyn aad iyo aad u dareemayaa. halkan waxaa lagu naanaysaa tuulada isboortiga waxyeelada qaybo kala duwan oo xirfadada xitaa ku jirta ciyaaraha fudud marka waxay idinka saaciidi doontaa haddii dib loo dhiso oo dowladdu iyo xiriirada iskaashadaan haddii ku dhisaan maxaa xirfadada kasoo kordhi doontaa wallahi fikradeyda waxay naga saacidi doontaa ciyaartooyda maaragtay hadda caqabadaha ugu weyn oo na haysto waa garoon la'aan maaragtay caqabadaas iyo ribidkii aan haysanin hadda haddii dib loo dayactiro oo la dhiso waxaa arkayaa in aan ciyaarihii fududay xibintoodii ay soo laaban doonto oo garoonkii aan heli doono ribidkii aan heli doono aan dibadda aadaynay hadda maadaama oo garoonkiiba hadda aan haysano haddana aan joogno wallahi dareenkayga midaan aad iyo aad la soo koobi karin waa sababtoo ah maanta garoonkan wax badan aan ku aamin jiray xaqada marka kala hadlayo marka garoomada kale aad ku almiteynay sidoo kale exclusion marka ku almiteynay sidoo kale iyo kan oo kale isku mid maahan marka marun waa isdhihi jiray maxaa la stadium Muqdisho marun indhahaga masaakirta haddana alxamdulillah ilaahay riido i rumeeyay waan ku faraxsanahay xaqada marka kala hadlo garoonka hadda aan joogno garoonka kubadda cagta mid basket waa jira mid handball waa jira volleyball waa jira mid dabaash waa jira dhammaan intii maxaa la ciyaartooy mid koox walba hadii loo geeyo mustaqbalka waxa ka soo bixi karo ciyaartooy heer qaran ciyaartooy maxaa la qurux badan oo wax walba talent ku ah waana wallahi xaqiiqdii maanta aad iyo aad u faraxsanahay waxaan aan sheego ma garanayo sababtoo ah xataa xaadeed xataa waa kacsan tahay sababtoo ah qeyradii wadankii iyo maxaa la meeshaas hadda waxaan ugu jeedaa dal walba dadkiisa dhisa waa xaqiiqdii waa weligeena maana arkin marka hadda waxaan markaan arko kala hadda Kampala kala ka imaanay ciyaaraha handballka national teamka marka garoonka istaagtid waa dareemi kartaa maxaa la xabiib qeyrad ku galayso hadda markaan intii maanana ilinta xataa mararka qaar xataa dib isku celinayna sababtoo waxaan aragnay maxaa la wadankeen garoonka sidoo qurux badan yahay sidoo uu weyn yahay nolosheedu weliga ma arkin maanta aan ugu horeys waa mid aad u faraxsanahay ilaahna waxa ka baryaynaa garoomada sidoo quruxda badan inay noqdaan inoo hagaagaan dayactir badan ay sameeyaan waana imaan doontaa insha Allah wax walba step step way madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo wafdigu hogaaminayo ayaa u amabaxay magaalada Banjin ee caasimadda waddanka Shiinaha si uu halkaas ugu qayb galo shirka madasha Afrika iyo Shiinaha madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hogaaminayo wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa dalka Shiinaha u gaaray si ay ugu qayb galaan madasha Afrika iyo Shiinaha kaasoo la filayo in sanadkan lagu hadlo arrin badan oo quseeya qaaradda Afrika Soomaaliya ayaa dadaal xoogan ugu jirto sida ay suuqyada caalamiga ah ee dhinaca ganacsiga u mid noqon lahayd wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa sharaxay ahmiyadda madashan oo u leedahay Soomaaliya Soomaaliya iyo China sida la ogyahay waxay leeyihiin xiriir taariikhi ah oo soo jireena iyo iskaashi dhaqaale iyo siyaasad iyo ayay wada leeyihiin dabcan madaxweynuhu muddada uu joogo dalka China wuxuu la kulmi doonaa madaxweynaha dalkaas Xi Jinping ayuu la kulmi doonaa ay ka wada hadli doonaan iskaashiga iyo wax wada qabsiga Soomaaliya iyo China iyo sidii loo xoojin lahaa xiriirkii wanaagsanaa iyo wax wada qabsiga ka dhaxayn jiray China iyo Soomaaliya madaxweynuhu wuxuu madaxweynaha China kala hadli doonaa in China soo uu maalgashiga uu ku sameynayo Afrika in uu ku daro dawladda Soomaaliyeed oo ilaa hadda waxba maalgashi oo China aan ka soconin sidii maalgashiga ballaaran ee Afrika uu ku sameynayo China Soomaaliya doorkeeda uga heli lahayd ayuu kala hadli doonaa madaxweynaha Soomaaliya waxaan rajaynaynaa xagga maalgashiga iyo xagga kale ee iskaashiga ganacsiga in iyadana heshiis laga gaaro sababtoo ah China waa dal aynu ka soo gadanno ama ganacsatada Soomaaliyeed ka soo gataan wax badan laakiin dhinaca kale aan Soomaaliya wax badan aanay u dhoofin marka madaxweynaha waxay ka hadli doonaan sidii Soomaaliyana ay dalka China ugu dhoofin lahayd khayraadkeena uu kamid yahay kalluunka iyo hilibka xoolaha iyo wax soo saarka beeraha iyo waxyaalaha kale Soomaaliya hodanka ku tahay
gudoomiyaha maxkamadda sare ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo xeeryaalaha guud ee qaranka ayaa ka qayb galay daafurka nidaamka maareynta dacwadaha elektarooniga ee xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka. haddaba xeer ilaaliyaha guud ee qaranka doctor axmed cali daahir ayaa sharaxayo ahmiyadda nidaamka dacwadaha elektarooniga ee xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ee u leeyahay. waa nidaam runtii sidaas sharaxaadda ka arkayseen wax badan sahlaya, accountability-ga sahlaya, galka in la xifdiyo sahlaya, xogta in la hayo sahlaya, shaqadana fududaynaya. waxaa laga yaabaa inaanba u baahanin mar dhow manpower badan oo dad ah oo galkan qofkan ka qaadkan u gee inta gee xagga wareejidii oo dhan in laga raysto oo sida uu systemku hadda u shaqeeyo ay tahay in uu noqon doono maanta waan daafuraynaa. systemkuna wuxuu shaqo bilaabayaa 1 September, waa bisha soo socota, dhowr maalmood kadib ayuu shaqo bilaabayaa. wuu shaqaynayay oo intii muddaaba waa lagu shaqaynayay, laakiin tijaabo ah. maalin walba khaladaad baa soo baxayay, dib baa loo saxayay, waa la update garaynayay. muddo waxaan u malaynayaa laga joogo nidaamkaani wuxuu socday muddo laga joogo goormaan bilownay February miyaan bilownay March ayaa xafiisku inuu ku shaqeeyo oo bilaabay, laakiin intaas lama daafuri karin maxaa yeelay tijaabo ku jiray. khaladaad baa la saxayay, waxay dhimanaaba lagu soo kordhinayay, baahidan dhabtu ka tarjumayay. maanta wuxuu diyaar u yahay inuu si full ah u shaqeeyo. uu gabagaboobay. aad iyo aad baan runtii uga mahadcelinayaa hay-aadka arrintan ugu taageeray oo ay ugu horeyso UNDP oo ay ku xigto European Unionka, khaas ahaan safaaradda Ingiriiska ama British Embassy oo uu heeray nagala joogo. runtii waan u mahadnaqaynaa. waxa kaloo mahad isla leh howlwadeenadii ka soo shaqeeyay, runtii inay abaalmarin bay nagu leeyihiin. maxaa yeelay wax alla wixii ay sameeyaanba markaan fiirino 10 khalad baan ku celinaynay. dhabar adeeg iyo waxay muujiyeen iyo runtii ixtiraam ilaa sidii aan rabnay ay u soo fariisiyeen. ayagana waxaan siin doonaa insha Allah, mahadnaqna waan siin doonaa, abaalmarinna waan siinaynaa. sida xafiis ahaan waan u abaalmarin doonaa. dowladda Soomaaliya ayaa ku wargelisay hay'adaha mashaariicda ka fuliya Soomaaliya inay xafiisyada u soo raraan dalka ka hor inta aan la gaarin sanadka 2019. wasiirka wasaaradda qorsheynta, horumarinta iyo maalgashiga dhaqaalaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan ayaa sharaxay ahmiyadda ay arrintan u leedahay dalka Soomaaliya. sababta aan u shirnay waxay ahayd in aan u sheegno in dowladda Soomaaliya ay rabto hay'adaha caalamiga internationalka ee ka shaqeeya mashaariicda Soomaaliya inay Soomaaliya joogaan, wadan degan yihiin, shaqaale Soomaaliya qortaan, cashuur bixiyaan, xarumahooda wadanka hado. waqtigii Nairobi la joogi jiray ama wadamo kale la joogi jiray, Soomaaliya loo iman jiray maalin shaqo maalin ah ama 2 maalmood ah, meelaha la soo malbeelay waa dhamaatay. waxaan siinay ilaa 3 bisha inta sanadka inta ka hartay inay ku soo guuraan dhammaantood. hay'adii January 1 banaanka joogta weli xafiisyadeeda wadan kale ku yaaleen, saas oo kale maalmaalin wadanka soo gaarta, dowladda Soomaaliya lama shaqeyn doonto. waxaan idin sheegaynaa hay'adii Soomaaliya ka shaqeysa international oo Soomaaliya barnaamijyo Soomaaliya fulis inay wadanka degan tahay, xarun ku leedahay, cashuur bixinayso, shaqaale Soomaaliyeedna qorato, dadka Soomaaliyeedna si lacagta ugu soo qaadaan ugu talagaleen ugu faa'iideeyaan. marka arrintaas aan u sheegnay. waxaan kaloo u sheegnay in waxyaalaha ay qabanayaan wadanka qabanayaan la soo socodsiiyaan hay'adaha dowladda la shaqeeyaan. inana hay'ad NGO madax bannaan oo suuqa waxa rabta magaalada ka samaysan jirin, laakiin la shaqeyso hay'adaha kala duwan ee dowladda, wasaaradaha, dowlad goboleedyada ilaa heer degmo, heer tuulo, meel allaale meesha jooga inay mas'uuliyiinta Soomaaliyeed iyo hay'adaha dowladda la shaqeeyaan, ay mashaariic la fulaan si ay u dhisanto awoodda iyo capacity-ga hay'adaha kala duwan. marka arrintaas aan u sheegnay oo isla qaadanay notice-ka digniintaana waan siinay. waxaan sugaynaa insha Allah, waxaan rajaynayaa inay hirgeliyaan. hay'adda hirgelin mar kale aan ku celinayaa, hay'adaasi kama shaqeyn doonto wadanka, wax xiriirna dowladda lama yeelan doonto haddii ay weli banaanka joogaan oo sidii hore ku socdaan. shirkan ahmiyad weyn buu leeyahay. saad aragteen madaxdii hay'adaha oo dhan ayaa jooga, qaar Nairobi ka yimid, kuwa meelo fog ka yimid iyo kuwa gudaha sii jooga.
digniinta aan bixinayna waxa weeye waxaan rabnaa waddankan deyntiin laga cafiyo deyntiin oo ka cafiyo in cashuur la ururiyo in dakhliga dawladdu kor u kaco dakhli suu kaco hay-adahan boqolaal kumanaan kun oo qof ayaa u shaqeyn cashuur bix millions of dollars boqolaal milyan oo dollar ayay maamulaan cashuurna bixiyaan weeye dadka Soomaaliyeed dhalinyarada ah bilaa shaqada inay shaqo ka helaan weeye sidaa daraaddeed waxaan u baahanahay inay joogaan Soomaaliya inay guryo kireystaan baabuur kireystaan dadka shaqaaleysiiyaan cashuur bixiyaan hay-adan intaas sameynayna haddana magaca Soomaaliya oo ku shaqeyna lama shaqeyn doonto waddankana kama shaqeyn doonto waxaan digniinta ugu dambeynaysiinay sanadkan inta ka hartay soo wada guuraan tii soo guuri weyda meesha ay degan tahay ay joogaysaa kooda January wax ka dambeeya wax xiriirana lama yeelan meel waddan ka shaqeyn kartaan ma jiri doonto digniintaas aan bixinay ma awoodno mana yeeli karno in maalin kasta dadka Soomaaliyeed ama dhalinyarada Soomaaliyeed badaha ka gudbaan shaqo la'aan ama ka qayb qaato waxyaalo kale aan dan ugu jirin iyadoo boqolaal milyan oo dollar magaca Soomaaliya ku baxa banaanka lagu kharash karay gamaasantiin ujeedadan taasi ahayd insha Allah rajeena amarada u hoggaansamaan tii hoggaansami weedana sidaan idin sheegay kooda bish wax ka dambeeya nalama shaqeyn doonto gamaasantiin waxaan soo gaarnay guntii iyo gabagabada barnaamijka toddobaadkii tagay Soomaaliya oo aad ku daawateen qodobo aad u xiiso badan intaan barnaamijka mid lamid aan ku kulmi doono daawadayaal waxa barnaamijka idin soo saaray oo halka idila socodsiinayay anigoo Cabdullaahi Axmed Kulmiye dhinaca kaamirada waa Cumar Mukhtaar Cumar intaan barnaamijka mid lamid aan ku kulmi doono toddobaadka dambe waxaan idinkaga tagayaa sida nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh